xiji waxa la yiraahdaa magac guud oo dhowr geed u qaybsama waxa kamid ah beeyada oo iyada lafteedu noocyo u qaybsanta maxor iyo luufood iyo wax la midka geedka hadda aan joogno oo meeshan hadda maanta aan joogno waxa la dhahaa geedkan xiji ama maydi baa la yiraahdaa waa geed la nafacsado oo sida aad aragtaan hadda dhagaxan soo ugu badan yahay meelaha qaarkood aad ugu badan gobolka bari guud ahaan iyo gobolka Sanaag buu ka baxaa uu noocyo badan yahay laftiisu kala qaalisan yahay meelaha uu ku yaal beeyado hadba sida ay tahay meelahan oo kale wuxuu ku jiraa midka ugu qaalisan oo hadda aan joogno waxa waqtigiisa ugu qaalisan tahay waa laga shaqeeyaa oo kulay dad baa nafacsada oo ku nool waxa iska leh oo maaragtay mulkiyadiisa maaragtay sida xeerarka hadda lagu dhamaay tahay beelo oo qoloba yani qoliyo waxa jira dadka dhulka degan aan lahaynba iyo qoliyo leh iyo maaragtay qoliyo ku badan yahay qoliyo ku yar yahay maaragtay sidaas baa loo kala leeyahay tacabka gala ama shaqada gashay kaliya waxa weeye markii uu qofku ka shaqeysanayo kharashka oo uu ku galo oo maaragtay uu ku cuno oo maaragtay saadkiisa ah laakiin isaga geed ahaan kharash lama geliyo wuxuu iskaga yaalaa kamid yahay dhirta Ilaahay uu buuraha ku beeray oo roobka Ilaahay uu keeno oo iskaga baxa sidaas weeye marka waa la sarcaa markii la sarcana waxa ka soo baxda xabagtaasna waa la iibsadaa ganacsatada si iibsata waa la dhoofiyaa Dubai baa loo dhoofiyaa Sacuudiga loo dhoofiyaa meelahaas ayaa loo dhoofiyaa intaan halka gaarin baan waxaan rabaa bal geedkii inaynu bal dadkii tusaale ka siisid geedkii waa kan sidee geeda kani caanaha ku keenaya waa tacaanay halka ku yaaleen marka sidee caanahan ku imanaya caanaha wuxuu ku keenaa geedka waxa la yiraahdaa sarc baa la marsiyaa sarcu wax kale ma aha oo markay xijiyeysato markay waleeyeen xiji wala sarciya wax kale ma aha geedkan baa la imanaya baalkan migaafka la yiraahdaa la sitaa si fiican waa la dhaawacaya si fiican marka ugu horeyso la dhaawaco waxa la yiraahdaa nagaf waa la soo nagfay uu imanaya ninku xijigiisa buu imanaya haduu kun geed yahay haduu dhowr boqol geed yahay dhammaan uu dhaawacaya geedkiiba wuxuu ka dhaawacaya sidee u kala weyn yihiin ilaa 3 meelood ilaa 4 meelood geedka weyn 10 meelood oo dhaawac ku dhufanaya dhaawac lagu dhuftay marka wax la hog magaceeda hog baa la yiraahdaa dhaawac yar uu ku sameeyay dhaawac marka lagu sameeyay marka waxa ka imanaya caano ama canano ayaa ka imanaysa oo u dhiganta mesela adiga hadii nabar ku gaaro oo dhaawac yar ku gaaro dhiigga ka imanayo kale to waqti ayuu ka maqnaanaya qolof baa dusha ka maraysa meeshii uu dhaawacay qolofta waxa loo diidayaa inay gaarto heer ah inay iyadu inta iska bogsato meeshii qolofta iskaysa ka dhacdo oo geedka sidiisa ku soo noqdo oo doorsato waa laga dagaalamaya xilli marka ay tiradiisi yaqaaniin oo ay nabaka xijigu ay ku xisaabtamaan oo kalgal la yiraahdo iyagu yaqaan kalgal ay ku imanayaan qoloftii ay ka tuurayaan